I just wanted also to ask you for advice because I am not a believer. I would like and I would want to believe in Islam. waxaan doonayaa inaad ii nasteexaysid sababtoo ah ma ihi qof ilaahay rumaysan waxaan doonayaa inaan islaamo. waa mid ka mid ah kumanaanka qof ee ku soo islaamay gacantiisa axmed diidaad caalimkii noloshiisa ku bixiyey islaamka. axmed xuseen kaadim diidaad waxa uu dhashay 1 bishii Julaay sanadkii 1918 isagoo ku dhashay gobolka Suraat ee dalka Indiya. waalidiintiisa ayaa ahaa beeraley waxaana uu ku soo koray nolol adag. daadiisa oo ah 9 sano jir ayaa waxa uu u soo wareegay magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika. waxbarashada ayaa uu ka tagay si uu u raadsado shaqo uu ka caawiyo nolosha qoyskiisa. duruufo qallafsan oo haystay awgood waxaana uu ka shaqo galay warshad, taasi oo shaqadii ugu horeysay ee uu ka qabtaa ay ahayd darawalnimo. in muddo ah kadib ayaa uu ka dallacay shaqadaasi isagoo horjoogo u noqday shaqaalihii warshadda. in muddo ah kadib waxa uu dib u bilaabay duruusta waxbarashada waxaana shaqo cusub uu ka bilaabay jaamacadda Ronga Williams University ee ku taalla magaalada Bristol ee dalka UK isagoo oo madax looga dhigay maktabad ay leedahay jaamacaddu. axmed diidaad ayaa ku takhasusay culumta xisaabta waxa uuna akhriyay buugaag badan waxa uuna xifdiyay marka laga yimaado quraanka kariimka ah kutubta injiil iyo tawraah oo lagu soo kala dejiyay nabi ciise iyo nabi muuse naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaatee. muxaadaradii ugu horeysay ee sheekhu uu qabto ayaa waxaa ka soo xaadiray 14 qof oo kaliya. tii xigtayna halka ay ka soo hor muuqdeen boqolaal qof. diidaad oo booqday dalka Pakistan ayaa waxa uu suurta gashay inuu wax badan ka barto islaamka waxaana uu qoray 20 buug kuwaasi oo u badan kuwa sharxaya diinta islaamka. sanadkii 1977 axmed diidaad waxa uu waajahay mid ka mid ah doodihii ugu adkaa oo uu kala kulmo dadka haysta diinta masiixiga waxaana ugu caansanaa sheekadii dhex martay isaga iyo James Swagrat oo ah nin u dhashay Mareykanka kaasi oo caan ku ahaa aflagaadada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. doodaasi ayaa ku soo gabagabowday in James uu khaladkiisii uu ka garaabo. xilligaasi ayaa sheekha uu magaciisu si weyn ugu faafay guud ahaan caalamka. axmed diidaad ayaa sidoo kale in badan ka shaqeeyay meelmarinta qadiyadda Falastiiniyiinta. hadalladii ugu caansanaa ee uu jeediyay ayaa waxa ka mid ahaa: kuwa ugu daran ee cadowga islaamku waa muslim jaahil ah kaasi oo ku dhegan jaahilnimadiisa ficiladiisana ku kharibaya islaamka, taasi oo ka dhigaysa in caalamku ay u maleeyaan inkaasi uu yahay wejiga dhabta ah ee islaamka. sheekha ayaa la sheegaa inuu ku sifaysnaa wanaagga iyo sidoo kale inuu lahaa awoodda qancinta dadka, taasi oo keentay in tiro badan ay gacantiisa ku soo islaamaan. sanadkii 1996 ayaa sheekha waxa ku dhacay cudurka faaliga halkaasi oo uu sariiryaal ahaa ilaa intii uu ka geeriyoonayay sanadkii 2005 daadiisa oo ahayd 87 jir. sheekh axmed diidaad ayaa ka tegay dhaxal iyo sumcad wanaagsan. ardaydii uu soo saaray sheekh diidaad ayaa waxa ka mid ahaa daaciga caanka ah ee lagu magacaabo Zakir Naik kaasi oo buuxiyay booskii uu ka baxay diidaad.